ayaa ka warbicisay waxyaabihii uu qabsoomay 3 bilood ee tagay soo kale waxa ay tibacday galfadhiga baarlamaanka oo maalintii shalay ay ku soo gabagaboway magaalada Jigjiga iyadoo sheegtay inuu yahay baarlamaankan mid lagu soo xushay aqoon isla markaana ku dhisan nidaamka cadcadaanta iyo isla xisaabtanka haweenada ayaa xustay inay tahay gabadhii ugu horeysay noqoto afayeenka baarlamaanka ee deegaanka Soomaalida. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. maanta shirjaraydkeenani wuxuu ku saabsanaa laba ajendaha koobaad waxa weeyaan xafiiska baarlamaanka muddadan 3 bilood ee nimi ama 100 cisho wixii uu qabsoomay iyo kalfadhigii labaad ee golaha lixaad sidoo isna uu qabsoomay labada ajenda weeyaan ajendaha ugu horeeya waxa xusid mudan in kalfadhigii koobaad ee golaha lixaad ay ka soo baxeen go'aamo taariikhi ah oo aan wali deegaanka Soomaalida ama geyga Soomaaliya oo dhan aan ka dhicin taariikhdaas oo ahayd in markii ugu horeysay afayeen gabadha loo doorto inay daadihiso golaha dawladda deegaanka Soomaalida sharaf bayna ii tahay inaan nasiib u helo arinta inaan ka soo baxana waan rajeynayaa insha Allah umadayda aan u ballan qaaday inaan ka soo baxana waan rajeynayaa marka labaad waxaan dhisnay gudiyada joogtada ah oo kala ah 35 xubnood 35 xubnoodi waa 7 gudi 7 gudiga ugu horeeya waxa weeyaan gudiga maamulka iyo sharciyada waa dabagalka maamulka iyo sharciyada gudiga labaadna waxa weeyaan dabagalka arrimaha bulshada iyo gudiga saddexaadna waa xoolo dhaqatada gudiga haweenka gudiga xoolo dhaqatada gudiga maaliyadda iyo miisaaniyadda iyo gudiga dabagalka xisaabaadka dawladda ee baak la yiraahdo waxay markaa kala ahaayeen 7 gudi waxaan u qabanay gudiyada tababaro kala duwan oo ku saabsan dhinacyo badan dhinaca sharciyada dhinaca kormeerka iyo dabagalka garaadkooda aqooneed marka wuxuu ku saabsanaa trainingiyo badan oo dhinaca xisaabaadka waa laga tababaray marka tababaro badan oo si ay wax u kormeeri lahayn ama ay u dabageli lahayn iyo dhinaca sharciyada waan ka tababarnay waxa xigay markii labaad inay gudiyadu u kala baxaan kormeerkii iyo dabagalkii markay u baxeen waxay maqnaayeen 1 month way soo noqdeen reportkii bay diyaariyeen waxaan u yeedhnay xafiisyadii oo dhan xafiisyadii baan halkan dhaliilahoodii oo dhan u soo dhignay xafiisyadii dhaliilihii qaar way qaateen qaar way ka soo jawaabeen kadib kalfadhigii baa dhacay kalfadhigii horta wuxuu ku dhacay si fiican wuxuu ahaa waa kalfadhigii labaad ee golaha lixaad ee baarlamaanku ahaa waana kalfadhi caadi ah oo la qabto 6 biloodba mar haddii arrin degdeg jirtana kalfadhiyo kale waa la qaban karaa laakiin badanka laba kalfadhi baa la qabtaa wuxuuna ku saabsanaa kalfadhiga dhageysigii warbixintii 6 bilood buu ku saabsanaa kalfadhigu si fiican buu u dhacay Allahumma musta'an wuxuuna ahaa golihii ugu horeeyay ee ay xildhibaanadu cadaalad iyo cadcadaan iyo isla xisaabtan dhaba ay muujiyeen golihii hore oo dhan wuxuu kaga duwanaa qof walba oo xildhibaani xorriyadiisu ku hadlayay cidii gacanta taagto dhan codkooda waa la siinayay cadcadaan iyo isla xisaabtan dhaba ayuu ahaa golahani wuxuu qaatay 2 maalmood oo xukuumadda warbixinteedii markay soo jeedisay marka adigu muhiimadda ugu weyn ee loo qabtay waxa horta in 6 bilood warbixintii 6 bilood buu ahaa wuxuuna ka koobnaa 5 ajendaha koobaad wuxuu ahaa hadal qoraaleedkii kalfadhigii koobaad ayuu ahaa ajendaha labaadna wuxuu ahaa dhageysiga warbixinta 6 bilood ee sanad miisaaniyadda 2014 ajendaha saddexaad wuxuu ahaa ansixinta hanti dhawraha guud maadaama hanti dhawrihii hore uu geeriyooday Allah u naxariistee ajendaha afaraadna wuxuu ahaa ansixinta gudiyada joogtada ah ee golaha baarlamaanka ajendaha shanaadna wuxuu ahaa bayaano kala duwan oo la horkeenayay golaha xildhibaanada bayaanadaas waxay 10 bayaan golaha xildhibaanada la horkeenay 10 bayaan 7 bayaan way ansixiyeen goluhu 3 bayaanna dib baa loo celiyay
sababta loo celiyana waxay ahayd maadaama uu waqti dheeriya oo ay ku fahmaan ay ku akhristaan ay iyaga dhexdooda kaga doodaan aanay u helin waqtigu gabaabsi ah uu ku yaraa si degdeg ah loogu soo gudbiyay inaan loo baahnayn ma waa loo baahan yahay hadada saddexda bayaan dib loo celiyay waa loo baahan yahay laakiin gudiyadu ama xildhibaanadu waxay u baahan yihiin waqti dheeri ah oo ay ku fahmaan oo ay kaga doodaan oo loogu faahfaahiyo waana loo baahan yahay taasina saasay muxuu ahaayay ku dhacday muxuu ahaayay waliba wuxuu ku soo hagaagtay xilligan aan u yeedhnay xildhibaanadu xilli ay xasaasi tahay abaar adag deegaankeena soo wajahday Allah umay naga saari kara Ilaahay baynu baryeynaa dawladuna ay jawaab fiican ay ka celisay xildhibaanadu way isxilqaameen kulligood meel walba ay joogeen dib bay uga soo noqdeen si uu kal fadhigu u dhaco waana uga mahadcelinay in kastoo laba cisho feesta ah ku beegnayd oo sabti iyo axad ah inay markaa maantana way wada bixeen marka xaaladda abaarta awgeed ayay muxuu ahaayeen xaaladda abaarta awgeed oo jirta ayay kal fadhiga ka soo qayb galeen maantana shaqooyinkoodu way ku noqdeen waan uga mahadcelinay xildhibaanada sharafta leh dooda adag xukuumadda inay cadcadaan iyo isla xisaabtan ay muxuu ahaay kula xisaabtamayaan ayay cadeeyeen golayaashii hore way ka duwanayeen golayaal gacanta iska taagan bay hayaan golahan laakiin golo muxuu ahaayay way cadcadaan iyo isla xisaabtan dhaba ay muxuu ahaay ka jira ayuu ahaa alxamdulillah waxaan u sheegayaa shacabkana xildhibaanada aad soo doorateen xildhibaano idin matalaya oo dhab ah oo dhibka idin haysta ka jawaabay inay yihiin ayaan idin cadeynaynaa Muudin Aadan Maxamed Muudin Xarago warbaahinta RTN Jigjiga markana dibadda daawadayaal wasiirada arrimaha dibadda dalalka Iiraan iyo Jarmalka ayaa ka wada hadlay heshiiska nuclearka wasiirada arrimaha dibadda Jarmalka iyo Iiraan ayaa ku heshiiyay heshiiska nuclearka iyo